السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكي فرحان إن شاء الله كسو دوادا إن شاء الله channel كان سبسكرايب كسمي سي آد أولا سعود أبدأ يدي بدن إن شاء الله ما أنتو حكا هذينا أرين آد مهمة أو قصيصو community جينا لوفل كنتاكي دادك لوفل ديغن مقالة دين لوفل كنتاكي minority small business أي كسوعة أرين كان مركا محاوي أرين كان ساني شيء هسا أوغيدين الدكور برنامج محاجر اللي يراهو reach wuxuu u saabsan yahay small businesska inuu u sameeyo resource iyo caawimaad muddo 4 bilood waxaa socday galaasyo dadka soo qayb galay ilaa 40 qof oo dad ah oo business owner ah oo u badan yihiin Soomaali marka fursadaha ugu weyn muhiimsan ee ka barteen wuxuu ahaa galaasyadan is how businesskaaga u sameeyay networking how u sameynaysid wuxuu ahaa financing making good decision marketing waxaasoo idil ayaa laga hadlay iyo resource-ka hadda marka waxaa laga hadli rabaa June 24 waa arin aad muhiim ah qasab ma aha inay galaasaha qaadatay waa imaan kartaa si aad uga faa'iidayso because this is the last shir laisku imaanayo oo arinkan looga hadlayo haddaa business leedahay and you want inaad kobcisid oo u baahan tahay dhaqaalo sidoo kale dhaqaalaha oo Islamic loan ah ay hadda siriga soo saarayso mar dhow insha Allah oo la isku raacay iyo hay'ado kala duwan oo waxa jira iyagana loan bixiyo oo riba aan lahayn marka dadka muslimka waxa aan kula talin lahaa hadda business leedahay small business owner aad tahay oo aad u baahan tahay kobcis ama fikrad in lagu soo kordhiyo ama ina fikrad business ina bilowdo kugu jirto ama u baahan tahay businesskaaga hadda ku socdo in laga caawiyo please kasoo qayb gal eventigan waa free laakiin waxa laga rabaa linkigan ku hoos jiro inta ku dhufatid informationkaaga gali registration samee sababtoo waxay tahay waxa la rabaa in la ogaado inta qof oo imaanayso si qadada loogu talagalo because qada jirto qadadaas la rabaa in marka hadaadan imaanaynin waxba ha buuxinin uma baahnid laakiin walaalayaal especially dadka la hadla Soomaalida oo level degan mar walba aan fursadana kala soo dhigo dadka way imaadaan badankood laakiin intaan imaanin markuu arinkii dhamaaday gadaal ay ka soo miirsadaan ama gadaal bay ka soo maqlaan ka bacdi wuxuu ku leeyahay gab no haddii shirkana imaanin waxba iga wadin arintan hadda iga wadiisid wax jawaab kuma siinay haan iga xumaanin sababtoo waxay tahay markuu sheega arinkan waxa laga shaqeynayaa muddo 6 bilood ah وصاص أو وهلا حدادن دنينين تين أرين كان أقدم بإن الدنيسيد تنت موكو جرتوا understand ميدا كلاي وقت أن سوق ليني والله جالس الشقي إن أدب أقول أوضو وقت جالس وما هاي قفوا عن أهاي مسؤول شقة بدن إسارن غير إسارن عرور إسارن وحبرتا بيزي جنا بدن هاي ما كوقت أقول رانا يا سو هدي فرصة أنا هاي كفايدة سين ويش أو أنكو قلت لك المعلن كاس oo 4 saacadood waay ina 10 imaada waxay dhamaanaysaa 2 o'clock markii duhur la gaaro waa lagu kala tagayaa so June 24 linkiga wakaasa qof business la hada ogtahay oo businesskiisa struggle sameeynaayo oo dhibaataysan yahay oo u baahan yahay caawimaad dad waxa imaanayo siriga dawladdu u shaqeeyo oo shaqadooda ay tahay in adiga businesskaaga ay ka caawiyaan way aniga qafa u shaqo leh qafa dawladdu shaqo u siisay inuu ka caawiyo aniga just waxay tahay formationka ayaan ku soo gudbinayaa wixii aad u baahan tahayna directionka waa ku siin karaa marka insha Allah hal la share gareeyo dadka u baahan hadaad u baahaneen maybe walaalka u baahan maybe saaxiibka u baahan insha Allah marka la share gareeyo channel kana hala subscribe gareeyo wixii information ana meeshana kala soconaysaan